dhinaca kalena diblomaasi maxamed maxamuud ayaa sheegay in gudoomiyaha maxkamadda sare uu dhaariyay 8 kursi ee hadda maxkamaddu diidan tahay. waraysi uu saaka siiyey goobjoog ayuu ku sheegay in arrinta la isku hayo ay tahay qalad siyaasadeed oo uu horay u galay gudoomiyaha maxkamadda sare ibraahim iidle suleymaan. arrintan oo ka dhex aloosan golaha shacabka iyo maxkamadda sare ayaa haddana dastuurka dalka u degsan waxaa ku qoran in labadaasi hay-adood golaha sharci dejinta iyo garsoorku ay kala madax bannaan yihiin. waxa uu sheegay in gudoomiyaha maxkamadda sare uu horay u dhaariyey xildhibaanada kuraastooda iminka uu muranka ku jiro oo baarlamaanka iyo golaha shacabka iyo maxkamadda sare ay isku hayaan. subax wanaagsan dhageystayaasha iyo shaqaalaha goobjoog idaacadda goobjoog. waxa weeye arrintani mudday soo noqnoqotay. waad la socotaa doorashada dadban iyo guddiga khilaafaadka dadban labaduba markii ay dhammaatay doorashadii 2016 8 xildhibaan ee la isku qabsaday. 6 xildhibaan shaacir abtidoon, xildhibaan maxamed siciid, xildhibaan nadiifa, xildhibaan muna, xildhibaan cabdicasiis, xildhibaan sharmaake iyo samra. xildhibaanada dhammaantood waxa weeye xildhibaano la dhaariyey oo ka qayb galay doorashadii madaxweynaha oo maxkamadda sare oo hadda diidan ay dhaarisay. oo maxkamadda sare oo hadda diidan gudoomiyaha maxkamadda sare ibraahim iidle suleymaan uu dhaariyey. marka arrinta waxaad moodaa arrin siyaasad laga leeyahay oo ah dawladdu markay horumar gaadhaba inay kooxo dara gaara leh ay jiraan. hadduu khalad uu jiro waxay ahayd xaggee buu ka keenay gudoomiyaha maxkamadda sare dhaariddu dhaariyey xildhibaanadan, haddana xaggee buu hadda ka keenay go-aanka ah inuu ku diido. marka gudoomiyaha maxkamadda sare isagu ma aaminsan yahay inuu khalad siyaasadeed galay oo ah kuraas la isku haysto oo dacwooyinkoodu ay socdaan oo guddiga khilaafaadka uu soo gudbiyey inuu u dhaariyo inay xildhibaana yihiin. marka arrimahaas oo dhan oo dhibaato badan baa jirta oo ummadda Soomaaliyeed lagu mashquulinayo. waa tahay marka waad la socotaa arrinta ka dhex taagan baarlamaanka iyo wasiirka dastuurka xukuumadda federaalka. shalay kulankii baarlamaanka waxa uu u qabsoomi waayey kooram la-aan. waxaa jirtaa la leeyahay xildhibaano kala taageersan wasiirka iyo sidoo kale kuwo kale oo wasiirka kasoo horjeeda. arrimahan marka maxaa xilligan kusoo beegay bay kula tahay? xilligan waxaa kusoo beegay bay ila tahay maadaama anigu ma garanayo go-aanka marka dib aan ugu noqono go-aanka gudoomiyaha maxkamadda sare uu kusoo saaray in dib doorashada loogu celiyay 8 kursi isagoo ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ninkii u aqoonsaday inay xildhibaano yihiin oo kitaabkii Ilaahay ku dhaadiyay. qodobkaas waxa weeye waa qodob inay ummadda Soomaaliyeed ogaato gudoomiyaha maxkamadda sare inuu laba waji ciyaaray. hadda ma dhihi karno waa nin laaluush qaatay, hadda ma dhihi karno waa nin u eexday sharciga uu ku qaldamay. waxay ahayd haddii uu gudoomiyaha maxkamadda sare yahay oo madaxweynihii Soomaaliya uu dhaariyey oo uu xildhibaanadii dhaariyey oo prime ministerkii uu dhaariyey, waxay ahayd inaanu dhaarin waraasta la isku haysto. taas waa qodob. waa 8 kursi. hadduu hadda dhaariyeyna may ahayn inuu go-aan ka soo saaro. qodobka labaad waxa weeye wasiirka dastuurku isagu abukaata ma aha. laba hay-adood baa isqabtay. isagu waa hay-adda fulinta. wuu ku qaldanaa ama inuu social media wax ku soo qoro ama inuu fikirkiisa caddeey. waa wasiir xukuumadeed hawl ammaanaa loo dhiibtay. marka inuu u dooda ma ahayn sidii abukaatanimo. arrintaasna isaga sharciga ahaan way qabanaysaa because wasiirku waa inuu dhexdhexaad ka ahaadaa hay-adaha dawladda. marka waxa weeye kacdoonkan siyaasadeed ee hadda socda wuxuu eegyahay koox dawladda kasoo horjeeda oo doonaysa dawladda inay curyaamiso. shacabka Soomaaliyeed hadda uma baahna in wax la curyaamiyo. waa tahay marka aragto marka sare oo khalad siyaasadeed uu galay aan cadeysanayn inuu khalad siyaasadeed galay oo ah inuu xildhibaano isagu uu dhaariyey oo isagu uu u aqoonsaday xildhibaano saxa la soo doortay yihiin inuu warqad ka daba keena may ahayn. waa tahay markaad eegto marka sida ay wax u socdaan iyo hadallada la isdhaafsanayaba arrintan ma horseedi kartaa jahawareer siyaasadeed amaba xasilooni darro siyaasadeed oo waddanka uu madaxa la galo?
insha allahu ma horseedi doonto madaxweynaha sharafta leh maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa laga rabaa inuu go-aan ka qaato ah in beenihii kuraastan iska lahaa ama 8 xildhibaan ee kuraastan ku doodaya in si xaqdarro ah looga tegay inuu u yeero oo xil siyaasadeed oo dawladda u dhigo nimankan xildhibaanada ah ee beelaha ka socda ee maxkamadda sare u aqoonsatay xildhibaanada in xildhibaanada loo daayo warka marka arrin laga odayeeyo in laga odayeeyo ayaa fiican warka maxkamadda sare ka soo baxay oo hadda baarlamaanka iyo maxkamadda sare ka dhex dhalisay arrinta taagan isagu maxaa loo dhigi karaa waxaa loo dhigi karaa ibraahim iidle saleebaan qalad siyaasadeed buu galay isagoo dhexdhexaad ka ah December 27 December 2016 isaga ayaa xildhibaanadan dhaariyay isaga ayaa xildhibaanada u aqoonsaday inay yihiin xildhibaano labadii guddi ee ahaa guddigii doorashada dadbanna shahaadooyinkii bay siiyeen guddigii khilaafaadkuna mataqaana go-aankay xildhibaanada ay ku diideen maxkamadda sare ayaa jebisay marka weeye waxa fiican in madaxweynuhu u yeero gudoomiyaha maxkamadda sare ibraahim iidle suleymaan oo uu xilka iska casilo waa haddii la doonayo in la ogaado in aan dib dambe khalad siyaasadeed oo dastuuri aan loo gelin oo ah gudoomiyaha maxkamadda sare xaq uma lahayn inuu xildhibaan la isku haysta dhaariyo arrintan marka baarlamaanka iyo wasiirka ka dhex taagan oo sida weyn loo hadal hayo maxay ku biyo shuban kartaa bay kula tahay haddii aanan xal keeda la gaarin waxa weeye iyaduna waxa weeye waa inuu wasiirka dastuurka uu baarlamaanka uu yiraahdaa ka raali ah waa tahay kaasina waxa uu ahaa maxamed maxamuud oo ku sugan Finland oo goobjoog kala hadlayay arrinta ka dhex taagan golaha shacabka iyo maxkamadda sare isla markaana sidoo kale wasiirka dastuurka qudhiisu qayb uu ka yahay